afartan toddobo taariikhda hijriyada waa sabti miilaadiyaduna ay ku beegan tahay 21 bisha saddexaad sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena waxaa kamid ah duqaymadii ugu dambeeyay Iran ay ku qaaday gudaha Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv iyo region Lazian ayaa la sheegay in si rasmi ah ay hadda magaalada Tel Aviv uga mid noqotay meelaha adduunka ugu ammaanka xun gaar ahaan Tel Aviv hadda waxay ka liidataa ammaan ahaan oo ay ka halis badan tahay Gaza waa markii ugu horeysay taariikhdaas Israa'iil ay soo martay caasimadeeda tani inta ay dhulkaasi yimaadeen macluumaad iyo warbixin cajiib oo arinta ku saabsan ayaan idin hayaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto waxa kamid ah Al Jazeera waxa ay ku waramaysaa in gontaalada fogaanta dheer ee Iran maanta adduunka ay ka yaabiyeen waliba nooca gantaal oo ay la soo baxeen warbixin Jazeera ay ka diyaarisay Diego Garcia gantaaladii Iran ay ku garaacday ayaan idin hayaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doono iyana waxa kamid ah China iyo Ruushka ayaa la cadeeyay inay si rasmi ah dagaalka ugu jiraan gaar ahaan dhanka sirdoonka iyo gudbinta macluumaadka oo ay la wadaagaan Iraniyiinta sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha ugu sarreyso ilaalada kacaanka dalka Iran isagoo la hadlayay telefishinka Memria qodobada sidoo kale aanu isla eegi doono waxa kamid ah CNN-ka waxa ay soo bandhigeen halista gantaalada Iran goobta ay yaalaan oo la sheegay goob cajiib ah inay tahay qaabka loo diyaariyay nooca hub ay haystaan warbixin cajiib ah oo wax badan dagaalkan aad kaga ogaan doontid ayaan ku hayaa iyadoo faahfaahsan waan dul istaagi doonaa qodobka ugu dambeeya waxaad ugu tagi doontaa askarta Israa'iil maanta sidii Gaza wariyaasha ay goobihii shacabka la burburiyo uga soo hadlayeen ay uga soo hadlayaan waliba raggii ugu sareeyay ciidankooda ayaa waxa ay leeyihiin iskuuladii ciyaalkii meelaha ilmaha ay duqaynayaan Iraniyiinta qodobada iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka idinku haynaa soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Cali halkan waa Kow Somali Media duqaymihii ugu dambeeyay Iran ay ku qaaday gudaha Tel Aviv iyo region Lazion ayaa la sheegay in si rasmi ah Israa'iil hadda ay uga dhigtay meel kamid ah meelaha adduunka ugu ammaanka liidato gaar ahaan Tel Aviv waxa ay wajahaysaa qixi ugu badnaa amaan daradii ugu badnayd dhaqaale xumo aad u culus laakiin qaybta yaab kale warbixinta maanta sida weyn loo faafinayo waxa ay tahay waxa la isu barbar dhigay halista gudaha Tel Aviv iyo Gaza waxa la maanta waxa halis badan dhinaca qofka in uu xabad ku dhinto ama gantaal ku dhinto Tel Aviv badan baa la leeyahay waayo saacad kasta waxa ku dhaca gantaal Iran ay soo turto ama drone Iran ay soo turto ugu yaraan Hezbollah taas oo macnaheedu ay tahay in Israa'iil hadda amaankeeda faraha uu ka sii baxaya dadkana waxa aad ay u dhibsadeen inay ku jiraan dhulka hoostiisa iyadoo meelo kamid ah gudaha Israa'iil mararka qaar korontadu ay ka tagto ma soo marin baa la leeyahay Israa'iil waqtigan oo kale dadka gudaha Israa'iil ku nool waxay u nool yihiin sida inay ku joogaan xilligii dagaalka labaad ee adduunka qaar ka haray waayeeladii dagaalkii labaad ee adduunka waxay ku barbardhigeen waxa hadda ay dareemayaan in dagaalkii labaad adduunka ay dareemayeen qaar waalidkood ka soo gaaray qisada looga sheekeynayo iyo qaar iyaga waa yeel ah ay arinta ka faaloonay tani waa musiibadii ugu weyneed ee ku dhacda kooxda Netanyahu qaybta yaab kale ayaa waxa ay tahay maanta gantaalaan caadi ahayn oo ay Al Jazeera iyo warbaahinta kala baahinayso waxa lagu muujinayaa dabka iyo holaca ka baxay gudaha Tel Aviv waliba maanta si gaar ah waxa loo beegsay region Lazion deegaanka la yiraahdo halkaas oo ay gantaalada burburka weyn gaarsiiyay madaxyada badan leh ay ku dhufatay Iran waxana lagu waramayaa in waqti aad u dheer duqayn jaha walba ay ku socotay deegaanka loo yaqaano region Lazion si kastaba ha noqotee hadda Tel Aviv waxay ka liidataa dhinaca amniga Gaza laba sano oo waxa soo martay mararka qaar daqiiqad walba qof uu dhimanay macnaha halista dadka ay wajahayeen daqiiqado ay dadku dhimanayeen caruurta macluul iyo gaajo u dhimanayeen wali Israa'iil gaajadaas macluushaas ma gaarin laakiin waxa leeyahay dagaalka hadii sidan uu sii socdo qatartu way sii badanaysaa waayay saaxiibada qiimiga low intaynu u gudbin warbixinada kale iyo wararka kale ee barnaamijyada soo socda diyaaradii laga qarxiyay Israa'iil ee aanu barnaamijka hore ku sheegnay waxay ahayd in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay ku dhawaaqeen in hawada Iran ay ku beegsadeen diyaarad nooceedu uu yahay F-16 oo ah diyaarad ay leedahay Israa'iil iyagoo sheegay in weerarka oo diyaaradan waxyeelo gaarsiiyay la qaaday maanta
halka Israa'iil xaqiijisay diyaaradan in la beegsaday ay sheegtay inaysan jirin waxyeello soo gaartay. waxay la diyaaradii waa la beegsaday Israa'iil wax ma soo gaarin. Iran waxay la diyaaradii waa burburin wana diyaarad F-16 way qaybta meeshan uga gudbeen arrinta diyaaradda ku saabsan oo hadda la xaqiijiyay nooca diyaarad ay tahay barnaamijkii hore ayaynu ku faahfaahinay sida ay wax u dhaceen. waayahay intaynu u gudagelin balaan isla eegno Al Jazeera oo warbixin ka diyaarisay gantaalka ay ku garaacday Iran saldhigga weyn Diogo Garcia ila daawo. Israel says buildings have been hit in Tel Aviv as Iran continues to target areas across the country. Sirens and explosions have been heard across central and south Israel. The city of Rishon LeZion, south of Tel Aviv, was targeted as several buildings were damaged while shrapnel fell in 3 places. Missiles were also intercepted in the Negev region. Adnan Sholani is a director. taasi waxay ahayd Al Jazeera oo warbixin ka diyaarisay weeraradii ugu dambeeyay Israa'iil ay ku qaaday gudaha Israa'iil weeraradii ugu dambeeyay Iran ay ku qaaday gaar ahaan magaalooyinka hadda aan soo sheegnay taas oo muujinaysa in halista ay wajahayaan Israa'iil ay tahay mid aad u sareysa hadda. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha ugu gudubnay iyo guud ahaan gantaalada iyo duqeymada lagu dhuftay saldhigyada Mareykanka gaar ahaan saldhiggii Ingiriiska ee ciidamada Mareykanka ay maanta loo ogolaaday xalay aan yiraahday inay isticmaali karaan oo ra'iisul wasaaraha Britain uu ogolaaday. sida telefishinka ee dalka Iran ka soo baxa Memoria uu la wadaagay mid kamid ah taliyayaasha ugu sareysa ilaalada kacaanka dalka Iran waxa uu leeyahay Iraaniyiintu waxa ay helaan taageero rasmi ah. taageeradan ayaa la sheegay inay tahay mid uga imanayso dalalka China iyo Ruushka. ana markii hore waxa jirtay war sheegay in China iyo Ruushka ay dagaalka ku jiraan laakiin hadda ilaalada kacaanka Iran baa bakhiraysa marka maciidamay u soo diyaaraday u soo diraan maya dagaalku waxay ugu jiraan waa idin la wadaagi doonaa iyadoo warbixinta uu sheegayo mid kamid ah saraakiisha ugu sareyso horena uga mid ahaa u noqday waliba madaxa ilaalada kacaanka Iran buu hore u soo noqday. ninkan waxa uu leeyahay waxay nala wadaagaan sirta goobaha diyaaradaha Mareykanka ka soo kacaan dhaqaaqa ciidamada Mareykanka imageska iyo macluumaadka iyo ayna siyaanay leeyihiin. macnaha waxa fahmi kartaa Iran dagaalka inay kaligeed ku jirin oo dagaalka ay haysato garab weyn oo ah Ruushka iyo China iyo Ruushka Iran saddexdaas xiriir ka dhaxay xiriir sahlan ma waliba Iran abaal weyn bay ku leedahay Ruushka dagaalka toos ugu jirtaan. mid kale waxa xaaladda sii adkay madaxweynaha Ukraine baa wuxuu la saftay Israa'iil iyo Mareykanka. Ruushka marka la safshadiisii Iran kore u sii kacday. Israa'iil marka waxay aaminsan tahay Zelensky inuu dhibaato u geystay Israa'iil. waayo Ruushka inuu la safto Iran wax weyn u tahay Iraaniyiinta. waliba Iran hadda waxay u baahan tahay hub badan iyadaaba samaysataba gantaalada iyo waan kula wadaagi doonaa qodob ku xigaad ku arki doontaa nooca hub iyo sida awoodda Iran hubkeeda u diyaarsan yahay si aanan ka warbixin cajiiba ka sameeyo waan kula wadaagi doonaa. laakiin waxa leeyahay macnaha Iran hub ku filan way haysataa qaab qorshe dagaal oo muddo dheerna way diyaarsatay laakiin dhinaca sirdoonka waxay uga baahnayd garab labadaba hadda Iraaniyiintu waxay qirayaan inay ka helaan dhinaca Ruushka iyo China ila dhageysa taliyaan. ما یک اشراف اطلاعاتی خوبی داریم ما روابط اطلاعاتی خوبی با کشورهای خارج داریم من نمیخوام اسم ببرم و اونا با ماهواره هاشون کنترل میکنن هواپیمای امریکا حتی از آمریکا حرکت بکنه یا از جزیره دیگو گارسیا از پایگاه هاشون تو اروپا حرکت بکنه اونا به ما آنلاین یعنی برخط به قول آقای حداد عادل برخط ما اطلاعات حرکت ناوهای آمریکایی را از ناوگان ششم در دریای مدیترانه تا ناوگان پنجم در اقیانوس هند تا دریای عمان ما اطلاعات اونها را به لحظه داریم میدونیم الان در چه موقعیتی حتی مختصات اونها را بعضن داریم. بالاخره تو شانگهای و بریکس ما هستیم دیگه با چین و روسیه ما یک روابط خوبی داریم. waayahay kaasi waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka dalka Iran. Memoria telefishinka leeyahay sida uu u sheegay waxa uu leeyahay waxaanu helnaa iyaga noo soo gudbiya meelaha ay ka kacaan meelaha ay ku dagaan dhaqaaqooda meelaha laga soo weeraro waa sababta hadda Imaaraadka Carabta Ras Al Khaimah ay ugu hanjabeen Imaaraadka oo ay leeyihiin
إسرائيل وأنا بيكسرين إمارات جارها راس الخيمة ما دام ديارديه مريكان كبيكسدي يجنتالد اللي جو بيكسدي حرمه إن مارت نقالها ضل إيران جارها شدال inay ka soo kaceen raas al khayma waayay walaalaha qiimo badan oo saaxiibada sharafta loo qodobka ugu dambeeya barnaamijka intaynu u gelin qodobka ku saabsan askartii Israa'iil oo ka dacwoonaysa gantaalada Iran laakiin aan ka hormariyo si ananka waxa ay soo bandhigtay warbixin cajiib ah oo ku saabsan in Iran dagaalkan isku diyaarisay waqti dheer oo aad u badan bay dagaalkan u diyaar garooday ma aan baa leeyahay dagaalkan mid ay hadda bilowday Iran inay u diyaar garoodo qarniyo ay dagaalkan u diyaar garooday waliba waqti dheer inay dagaal soconay ay isku diyaarisay sidaa darteed hubkeeda horta waxay ku samaystay warshadaha hubka ay ku diyaariso waa dhul hoostiis meel la tagi kara maahan godad waaweyn tuneelo dhul hoostiisa ku leeda wixii qaza ka dhisnaa waxba kama jiraan baa leeyahay kuwa Iran ka dhisnaa ka qatarsan waliba Iran waxay uga sii darantaa waxaas oo dhan warshaday dhul hoostiis ku leeda hubkooda droneskooda gantaaladooda iyaga sameeyso waxa intaas dheer warbixintu waad maqli doontaa waa mobile baa la gantaaladooda macnaha mobile waxa la gantaal la qaadi kara waa qof qaadi kara qaarkood gawaariya lagu qaadi kara waa la rari kara hal meel inay yaalaan laazim ah oo meesha lagu burburin karo gantaalka inta hadii laga tuuro waa la qaadaya meel kale u yaalaa macnaha hadii xitaa la isku dayo sirdoonka Mareykanka Israa'iil haday isku dayaan meesha laga soo tuuray inay garaacaan maba yaalaba gantaal uu riday horu ka cararaya meel kale u yaalaa meesha kale ka riday meel kale u aaday la dhulkoodii baa iyaga yaqaan waliba inta badan waxay ka dagaalamaan baa la dhahay hubkan ay ka soo ridaan gantaalada qaar waa nidaam ay u sameeyeen dhulkoosiis inay ka soo ridaan marka CNN-ka waxay leedahay Iran dagaalkan waxay u diyaarisay muddo dheer inay dagaalami karto sanadyo badan inay dagaal ku jiri karto taas oo ku adkeynaysa Mareykanka Israa'iil in ay wax natiijo ama guula ay ka gaaraan waayahay saaxiibada walaalaha qiimiga lahow bal waxaad aan isla dhagaawanaa warbixinta sida weyn ay uga diyaarisay